Soomaalida oo la sheegay inay soo bilaabantay 800 sano ka hor sidii taariikhdu xusayso ayaa maanta channelkeena Yuusuf Magan uu qalinka u qaatay si uu wax uga iftiimiyo taariikhda dahabiga ee Soomaalidu ay leedahay. Markaan leeyahay Soomaalida waxay taasi micnaheedu tahay Soomaali waxay ka soo kala jeedaan dhowr aabe, laakiin hadda waxaynu awoodda saaraynaa ama waynu ka hadlaynaa in ku qaadaadhigi doona qodobkeenani Aaba Sheekh Isxaaq oo ka mid ahaa dhowrkaasi aabe. qisadan Sheekh Isxaaq oo kooban haddii aynu ku horeyno, waxa uu ahaa nin ka soo jeeda waddanka loo yaqaano Yemen, waxaana uu ka mid ahaa dhowrkaasi aabe oo diinta Islaamka ka faafinayay Geeska Afrika. markaasoo ay wadaadadii kale ay hore u sii socdeen iyo dhanka bariga Soomaalida, Sheekh Isxaaq waxa uu isagoo ku soo hadhay magaalada loo yaqaano Ceerigaabo si uu dacwadda uga faafiyo. waxa uu halkaasi ku guursaday gabar xabashiyad ahayd siday taariikhdu ay qorayso, waxaana uu dhalay dhowr carruura, waxayna noqdeen ama isu beddeleen family dhammaystiran. kadibna waxaa carruurtaasi ka farcamay qabaa'il fara badan oo loo yaqaano reer Isxaaq magacooda gooda. waxa uu ku dhintay haddaba Aaba Sheekh Isxaaq isla meeshii uu diinta Islaamka uu ka faafinayay, waxaana lagu aasay qudbida weyn oo la sheegay inuu gacantiisa uu ku bineeyey. waxaanay muddada binadaasi gaadhaysaa amaba dhismahaasi qudbida weyn ee Sheekh Isxaaq gaadhaysaa muddadii ay dhisnayd muddo lagu qiyaaso 800 sano sida ay sheegayaan ilo wareedda lagu kalsoon yahay. haddaba marxuumka waxaa ku abtirsada qabaa'il fara badan oo loo yaqaano reer Sheekh Isxaaq oo dega galbeedka Soomaaliya, waxaana uu aabbahaasi ku aasan yahay xiis iyo maydh badda loo yaqaano, waana goob taariikhiya oo adduunka meelo fara badan laga yaqaano. haddaba xaaskiisii waxay taariikhdu sheegaysaa in lagu magacaabi jiray Xabuusha, maadaama aysan jirin dad Soomaaliya arladana la odhan jiray Ardulxabash. Soomaalidana ay waqtigaasi ay ka soo bilaabantay. marka la eego dhanka galbeedka Soomaaliya, mana aha dhanka galbeedka oo qura, laakiin Soomaali koonfureed iyaduna waa mid kala siman, mana aha dad ku kala tagsan dhanka taariikhda oo waxay soo wada muuqdeen hal waqti, sababtoo ah raggan ay Soomaaliya ku wada abtirsataa waxay isku mar wada yimaadeen dalkaasi loo yaqaan Ardulxabash. iyaguna waxay ahaayeen rag ka soo jeeda waddanka Yemen. way jiraan dabcan taariikho kale oo sheegaya waxyaabo kale, laakiin dhammaantood waxaa afka ooda ka saartay taariikhdan ay dhagaheenu u casuuman yihiin.